tan waa booqasho gaaban oo aan ku tagnay xarunta Bidhaan Production oo ah mid ay ku shaqeeyaan gabdhaha yaryar isla markaana ku shaqeeya qaybta kaamirada ee dhinaca haweenka. Shaqadan ay qabtaan gabdhahani waa mid dhif iyo naadir ku ah warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka, balse iyadoo taasi jirto waxay ku shaqeeyaan gabdhahani marxaladaha uu haatan dalku ku jiro iyagoona xil weyn iska saara haqabtirka baahiyaha ay qabaan bulshadoodu. Inta badan shaqooyinka ay ku hawlan yihiin Bidhaan Production oo ah sidaan hore u sheegay koox haweena waxay ku tacalluqaan waxyaabaha kala duwan sida soo duubista goobaha uu ka jiro aroosyada, dhalashada, meherada iyo sidoo kale xafladaha guud. Waxay ka kooban yihiin ilaa dhowr xubnood oo kala duwan, waxayna leeyihiin shaqooyin kala duwan, qof walibana waxa uu qaabilsan yahay xubin gaara. waxaan waqti xaadirkan kulan la qaadan doonaa aasaasaha Bidhaan Production oo ah gabadh lagu magacaabo Khadra, waxayna haatan ku sugan tahay xarunta Bidhaan Production oo ku taala magaalada Muqdisho. waan dhawahay waadna mahadsantahay abaa ciido TV-ga codka bariga Afrika iyo adigoo ciidaha iyo cameraman-ka waan wada salaamayaa dhamaantiinba. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Anti Bidhaan Production waxa loo aasaasay siyaabo badan oo kala duwan. Haddaan ugu hormaro sababta loo aasaasay waxay tahay markii la arkay baahida ay bulshadu u qabto in lagu soo kordhiyo gabar wax duubto. sida wada ogsoonahay markii gabar la guursanayo ama gabar ay xaflad sameeysanayso hadii jeer waxa duuba wiilala cameraman ka ah, wiilala edit gareeyo, wiilala habeeyo. waxa macquul ah xitaa marka waxyaabaha mararka qaar markay duubayaan in ay dhacdo gabadhii oo aanan asturnayn ama meel ay ka banaan tahay aysan awoodin xataa inay u sheegaan ay dhahaan abaa meel ka banaan si hadhooti ay caqabad aysan ugu imaanin ay iska aamusaan sideeda ay ku duubaan. laakiin dhibaatadaas oo dhan markay aragnay anaga Bidhaan ahaan waxaan jeclaysanay in aan barnaamijkaas aan sameeyno aan sameeyno in gabdho wax duubo oo maxaa la yiraahdaa sawirada qaado oo markay haddana soo duubaan ayaga la edit gareysto habeesta inaan nahay aan awood u leenahay ama xayatay aan awoodno inaan dhahno gabadhii meel ka banaanta ama gabadhii xeega wax jiraan aan u sheegi karno oo sidii wiilasho kale aysan cabsi iyo waxyaabo kale aysan dhiceenin. baahidaas darteed ayaan u sameeynay Bidhaan sida ayaan noogu suurta gashay. run ahaantii Bidhaan Production waxaa la aasaasay sanadkii hore tagay 2018 bishii 7 13 la aasaasay. markaas ayaan xafiiska aan furanay, laakiin inta aanan xafiis furanin ka hor ilaa iyo bishii 6 bishii 5 waa shaqeyneen anagoo xafiis la'aan aan ku shaqeynayna. run ahaantii ciido waa su'aal muhiim su'aashaas. xilligii aan bilaabeynay waliba sanadkii hore ahaa dhibaatooyin badan kala kulmi jirnay. waxaa jira mararka qaar nala aflagaadeyn jiray, waxaa jira mararka qaar waxa la yiraahdaa waxyaabo aanan u qalmin lagu la sameyn jiray because dumar aad tahay waa lagu yeesayaa in aqoon aan leedahay ama wax aad sameyn kartid ma wala moodaba. waxaa jira xataa kalsooni la'aan dadka qaar aan u shaqeynayeen aysan ugu kalsooneen ay yiraahdaan waxaad adi aad sameysay itus ma umaleynay adi inaad shaqadan qaban kartid gabar wax duubay isbiligay maan arkin oo kale. waxaa jirta xataa dadka qaar markaan wax u sameeyno wax u hagaajino wuxuu aan siina xataa bahdilaad noogu daro oo lacagtan xataa qaar noo diiday way jiraan. qaar tartamo nala sameeyo oo dad badan oo xataa TV u shaqeeyo hadda daa ku sheegay xataa aad yaabaysid oo nagu aflagaadeynay inaan anaga waxba aqoonin way jiraan. dhanka waalidka kale caqabado way ka yimaadeen oo sida ogsoon tahay aroos waxa laga yimaadaa gelinka yani 10 wax ka dambeeyo kale ayuu arooska dhamaanaya. xilligaas ma awoodid in adoo qalabkaaga wadatid aad tagtid gurigaada. waalidka caqabada kaaga imaan karo, wadadii caqabada kaaga imaan karto, dhanka amaanka oo kaleeto dhibaatooyinku iska badan yihiin xilligaas. laakiin hadda alxamdulillah waxaas oo dhan waa ka soo gudubnay. hadda xilli waxaan maraynaa noola hambaliyeeyo dadka qaarna yiraahdaan aroos aysan Bidhaan duubeynin ma jeclin oo ay dad badan noogu soo hagaagaan sida aad ogsoon tahay xafiisaan leenahay xarun noogu soo hagaago ay noo yimaadaan ay halkaas noogu soo booqdaan. run ahaantii waxaan u dirayaa baaq kala duwan gabdhaha Soomaaliyeed gabdho badan wax bartay way jiraan ayagoo wax bartay oo wax yaqaan haddana cabsi ay ku jirto guriyaha la joogaan. run ahaantii waxaan kula talin lahaa cabsida dadka aad ka cabsanaysid oo aad isleedahay dadkan hadhowti ama wax ku yiraahdaan dadkaas cabsidooda waxba shaqadaada ha ugu joojinin. weligaana inta aad leedahay horta qofkan ka cabsana ama dadkan feedback ka imaanaya muxuu noqon karaa iyo inta aad taas ku fikirayso horumar ma gaaraysid. waxaan dhihi lahaa dadka hadalkooda wuxuu u noqdaa dhiirigelin in intay is dhiirigeliyaan goobaha wax lagu bartay ay yimaadaan maxaa la yiraahdaa xarumaha wax lagu tababartay ay tagaan ay aqoontooda sare u qaadaan ay nagu soo biiraan. xitaa anaga Bidhaan ahaan waa soo dhaweynaynaa qofkii tababar u baahan, qofkii raba in maxaa la yiraahdaa wax loo kordhiyo, qofkii shaqo u baahan waa soo dhaweynaynaa. gabar walba Soomaaliyeed waxa uu talinayaa in ay guuleysato
يعني نقطة جبر هرو سعد له أنت لسانك سنة قبلها سوماليات كل جد أقوى هالنوع أقوى ويليهين عبسيد جرتنا ويسكت ما دون تورجينا يا إن ما أنت نجسر مرة دونان حتى أن يقانا إنه خن دونان waxaan leeyahay guuleysta gabdhaha Soomaaliyeed saxaafadda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxa ay sameeyeen kobac hor leh hawshan ay ku hawlan yihiin gabdhuhu waxa ay qayb ka tahay kobacaasi ay sameeyeen saxaafaddu iyadoona si weyn ay u noqotay arintani mid ay u soo dhaweeyaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ee ku naqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalku marka ka dambeeya waxa ay keenaan fikrado dheeraada kuwaasi oo dhiirigeliya kuwa kale iyagoo ku sugan guryahooda isla markaana aan awoodin inay qabtaan shaqooyinka kala duwan ciidaha rasmaagane TV-ga codka bariga Afrika Muqdisho